Sow ma ogid in ka hortaggu uu ka fiican yahay daaweynta? Haddaba waxyaabaha ugu muhiimsan ee caafimaadka lagu ilaaliyo waxaa ka mid ah jimicsiga noocyadiisa kala duwan. Haddaba jimicsiga lugta ayaa lagu sheegay mid la mucjisooyin caafimaad oo aan la soo koobi karin. Samaynta jimicsiga lugta iyo 15 faa'iido laga diiwaan geliyay ayaad ku arki doontaa halkan. Waxaanay kala yihiin kow jariiradda la yidhaahdo The Healthy American oo soo xiganaysa cilmi baadhis lagu sameeyay jimicsiga lugta ayaa lagu sheegay in jimicsiga lugtaahi oo qofku uu joogteeya uu ka shaqaysiiyo hormoonada qofka siiya farxadda iyo deganaanshaha. Sidaa darteedna qofku ka samayn badan yahay jimicsiga lugta uu ka farxad iyo dhoolla caddayn badan yahay. Laba jaamacadda Stanford University oo daraasad ku samaysay jimicsiga lugta ee joogtada ah ayaa sheegtay in dadka sida joogtada ah u sameeya jimicsiga lugtaahi ay noqdaan dadka hibada u yeesha maskax furnaanta, hal abuurka iyo wax xurinta. Saddex dadka sameeya jimicsiga lugta ee joogtada ah ayaa la sheegay inay ka caafimaadaan ama ka bogsadaan xanuunka neefta ee asmada ama neef-qabatinka. Afar jariiradda la yidhaahdo Nigerian Medical Journal ayaa lagu sheegay in dadka jimicsiga lugta ah sida joogtada ah u sameeya uu jidhkoodu iska saaro sumowga ka yimaada cuntooyinka la cuno ama cabitaanada la cabo ee aan caafimaadkoodu wanaagsanayn. Shan website-ka caanka ee ka faallooda arrimaha caafimaadka ee Mayo Clinic ayaa lagu sheegay in dadka jimicsiga lugta ah sameeya ay ka cimri dheer yihiin kuwa kale ee aan samaynin jimicsiga lugta. Lix dadka jimicsiga lugta ah sameeya ayaa la ogaaday inay ka hurdo wanaagsan yihiin kuwa kale ee aan iyagu samaynin. Toddoba dadka ku fiican samaynta jimicsiga lugta ayaa la ogaaday inaanay iyagu noqonin kuwa cadho badan marka loo eego dadka kale. Sideed jaamacadda University of New Mexico oo daraasad ku samaysay jimicsiga lugta ayaa sheegtay in dadka sameeya jimicsiga lugtaahi ay inta badan ka badbaadaan xanuunada ku dhaca maskaxda. Sagaal jimicsiga lugta oo si joogto ah oo nidaamsan loo sameeyo ayaa la sheegay in lagaga bogsado xanuunada dhabarka ee joogtada ah. Toban dadka sida joogtada ah ee nidaamsan u sameeya jimicsiga lugta ayaa la sheegay inay ka badbaadaan xanuunada ku dhaca lafaha. 11 dadka sida joogtada ah u sameeya jimicsiga lugta ayaa la ogaaday inay indhahoodu ka caafimaad badan yihiin kuwa kale ee aan iyagu samaynin. 12 samaynta jimicsiga lugta ayaa u fiican isku dheelitirka miisaanka jidhka. 13 samaynta jimicsiga lugta ee joogtada ah ayaa qofka ka ilaaliya inay ku soo degdegaan calaamadaha gabowga ee aan waqtigooda la gaadhin. 14 jimicsiga lugta ayaa jidhka bini'aadamka ka dhiga mid difaaciisu wanaagsan yahay. 15 jimicsiga lugta ah ee sida joogtada ah loo sameeyo ayaa si cajiib ah uga shaqaysiiya qulqulka dhiigga ee marinnada jidhka.